حاج سليد وين ما تسليد وحكرسنا ربنا سليد دخالي هي تاني سليد يقرا ما سير بطمع أنا شقدي دخانه waxaa laga yaabaa inaad adigu ku madadaalanayso muuqaalkani laakiin waxa uu ka turjumayaa xaaladda rasmiga ah ee ka jirta meelo ka mid ah caalamka. saliid caddeydii ayaa laga la'yahay suuqyada, sicirkeeduna wuu sareeyaa oo suuqyada Soomaaliya $8 ayuu ku dhow yahay caaga qaada 3 litir. wadamada dhoofin jiray qaarkoodna way joojiyeen dhoofinta saliid caddeyda. dadka Soomaaliyeed waxa ay la daaladhacayaan sicir barar xoogan oo ku yimid shidaalka iyo cuntooyinka quudul daruuriga sida sonkorta, saliid caddeyda, burka iyo bariiska. haba ugu darnaatee saliid caddeyda oo lafdhabar u ah dhammaan cuntooyinka la cuno, la'aanteedna aan la karin karin cunto. liitarka saliid caddeyda ayaa maraya ku dhowaad $2 iyo bar, waxayna hadalhayn badan ka abuurtay sare kacaani ku yimid saliid caddeyda baraha bulshada, gaar ahaan barta TikTok-ga. dhalinta isticmaasha TikTok-ga ayaa soo bandhigaya muuqaalo muujinaya sida ay qaaliga u tahay, loona baahan yahay in la dhaqaalaysto ama la yaryareysto saliid caddeyda. arrintani ayaa imaanaysa kadib markii uu Ruushka duulaan ku qaaday dalka Ukraine, taasi oo sababtay in ay kor u kacaan qiimaha maciishada quudul daruuriga ah iyo shidaalka.